dhagax la tuuro meel dhow buu ku dhacaa balse dhawaaqa rasaasta meel fog ayaa laga maqlaa. Somalia is facing a leadership crisis after President Mohamed Abdullahi Mohamed's first term in office. تتصاعد الأزمة السياسية بين رئيس Any fear a further spike in violence. That's because Somalia is now officially leaderless. waxaa libdhaysa rajadii iyo dib u kabashadii Soomaaliya. indhaha caalamku waxay mar labaad arkayaan foolxumada Soomaaliya ee laga dhaxlay maamul xumadii ka jirtay dalka 5 sano ee soo dhaafay. waa calankii qaranka oo caasimadda ku go'ay. waxa uu ka dhinac babanayaa caagan tayo lahayn oo laga metelay taaladii Axmed Gurey. waxa ka muuqday warasaas lagu ridayay dadkii ka dhiidhiyay muddo kororsiga sharci darrada ahaa. Soomaaliya maanta waxay taagan tahay waddo kala bayr ah. midi waa maamul xumo, midna waa hanaan dawladeed federaal ah oo sharci iyo dastuur ku salaysan. عد مقارين كريه ويقلو عالمكين قرن وحعاو سيده ويقلو اليعابي يعود لك سعيده ويقلو 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 ويقلو. سعيد عبد الله دني وهoggaamiye leh aragti fog ku xeeldheer maamul wanaag. waxa uu Puntland ka hirgeliyay amni buuxa, koboc dhaqaale iyo dhismayaasha kaabayaasha. waxa uu hooyada federaalka ee Puntland ka suurtageliyay qabsoomidda doorasho qof iyo cod ah oo u dhacday si xaq iyo xor ah. سعيد عبد الله دني waa musharaxa kaliya ee ka guulgaaray waxa ay Soomaaliya maanta u baahan tahay. waxaan rabnaa dimuqraadiyad iyo nabad. waxaan rabnaa dal amni ah loo siman yahay dadkuna wada leeyihiin. waa madaxweynaha iyo hiilka Soomaaliya maanta u haboon qabto. لك